الله الرحمن الرحيم. waxaan doonayaa inaan si yar kooban u falanqeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo shaqada ka tagay iyo casharada dimuqraadiga ee laga baran karo. Horta waa ra'iisul wasaarihii lixaad ee muddo 10 sano ah xilka baneeya. Lixdan ra'iisul wasaare oo ka kooban 4 rag iyo 2 dumar ah oo mid kamid ah 4 rag ah oo aabihii ka soo jeeday waddanka Pakistan ayaa waxay xilka ku baneeyeen dhamaantood iyagoo raba inay sii hayaan kadib markii uu culays kaga yimid shacabka ama xisbigiisa iyo xildhibaanadii doortay marka horeba ama uu ku fashilmay inuu xalliyo dhacdo taagan ama ballanqaad uu fulin waayay iyo sidoo kale ay fadeexad ku timid dhamaantoodna waxay jeclaayeen inay xukunka sii hayaan marka mid kasta markuu xilka ka tagay uu ka calaacalay inuu ku guul daraystay inuu sii hogaamiyo waddanka. haddaba halkan maxay nooga muuqanaya kow kasakowde fashilka hogaamineed ee Ingiriiska ku dhacay waxay noo muuqanaya bisaylka hanaanka dowladnimo ee Ingiriiska ama bureaucracy awoodda uu leeyahay oo inta ay lixdan ra'iisul wasaare isbedelayeen shaqada dowladnimo ma istaagto way socotaa adeeg bixinta dowladnimada waxba iskama bedelaan marka horeba ma saamayso shaqada dowladnimada siyaasaddu ma saamayso oo waxay haystaan bureaucratic stability laba sareynta sharciga haddii wadamada qaarkood dastuurka loo bedelo si hogaamiyuhu sii joogo halkan markuu hogaamiyuhu khaldamo uu baxaa saddex muwaadiniinta waddankani inay yihiin dad xogogaal ah markaana siyaasadda ka qayb gala oo hab togan uga qayb gala saddexdaa marka la isla helo runtii waa tiirarka aasaasiga ee bila dimuqraadiyadda waxa marka intaa la isla helo dhalanaya in loo sinaado fursadaha hogaamineed in ay sharcigu sareeyo oo hogaamiyuhu uu ahaado adeega bulsho oo ballanka dadka ku shaqeeyo awoodana si dhab dadku ay u yeeshaan markay rabaan ay saaraan iyo in caqabadaha ama dabarada dimuqraadiga meesha laga saaro sida Ingiriisku teeram ma leh hogaamiyaha ilaa inta la jecel yahay uu talin karaa doorashada xilligeeda waa laga soo horumarin karaa sidoo kale xisbiyadu tiro kuma xadidna musharax madax bannaan baad noqon kartaa xisbi cusub baad anytime samaysan kartaan markay saddexdaa hubiyeen dabaradii dimuqraadiyadeedna meesha way ka saareen innaga Somaliland ahaan maxaa markaa halkaa aynu ka korsan karnaa waxaan ka korsan karnaa haddii aynu kow horta waa inaynu joojinaa muddo kordhinta oo ay doorashadu xilligeedii dhacdaa si aynu u baranno hanaanka doorasho laba waa inaynu kala saarnaa wixii agaasimo guud ka bilaabma ama adeega dowladnimada waa inaanay saamaynin siyaasaddu oo aan la siyaasadayn ee ay ka madax bannaanaadaan saddex muwaadiniinteenu waa inaynu korinaa oo ay dantooda wax ku doortaan aanay ree hebel wax ku dooran aynu fursadaha u sinaanaa haddaynu kuwa qaadano saynu dimuqraadiyadda u qaadano kuwa u koobi garayno waxaynu dhaadhacaynaa manfaca dhabtaa ee dimuqraadiyadda laakiin yeelkeeda dee Ingiriis maaga dhigayno 800 sano ayuu dimuqraadiyad iyo baarlamaannimo ku shaqaynayay inteena kuma xumin waase in la dadaalayo Cabdiwaraab Allah naxariisto xulan jiray waraabihii waraabaha qaniyada baray wuxuu yiri waa intaasoo lagu sii xajiyo